السلام عليكم دمان غير Soomaali meel kasto joogtiin ku soo dhawaada channelka daawanaysa waa Nuruddin official please hadaan ugu soo subscribe kan ugu caawi maanta nala daawada imaam Soomaaliyeed oo arag la ma sha Allah oo masaajidka safka hore salaad kasta ugu duko oo imaamka Cabdulqaadir waa imaam aragala waxa uu u degdegayaa sidii uu u tujin lahaa salaada duhur oo foodan ugu soo haysa ushan ayuu ku tukubaa mar uu taabaco iyo mar uu turunturoodaba kama daalo tegidda masaajidka codkiisa oo aad u macaan siiqada uu ku akhriyo qur-aanka iyo deganaanshaha uu ku hogaamiyo ragcadaha salaada ayay dad badani ku xasilaan inaan kici weyno maahane masaajidka inaan u kufno u dhacno waajib waay salaada aniga waxaan jecelahay qofka inaan tadarruc iyo khushuuc iyo fudaan mukhaffafa inaan ka dhigaan jecelahay maahan aniga maaragta dadka kamana cilmi badni kamana aqoon badni marka ilaahay ha jeclaaday inta ay jeclaan waxa waa nin walaalkooda aan ahay Cabdulqaadir qadarta alle ayuu ku sabray waxa uu xooga saaray barashada diinta islaamka isagoo akhristay kutub fara badan taasi oo dhaxal siisay in dad badan ay jeclaystaan tujintiisa kuwaasi oo aan anigu ka mid ahay keligii ayaa lugeeya suuma haysto cid gacan qabata danta ayaa bartay xeelad bilaahumaaga oo uu kaga gudbayo wadooyinka iyo luuqyada magaalada Muqdisho oo uu halis badan kala kulmi karo faraka ciyaarkii caruurnimo legdin la isku xifaaleeyo iyo istuuriyeynta oo uu joogteeyay ayaa sabab u noqday inuu beelo labadiisa indhood balse aniga indhahayga waxaa ku waayay ilmaan ahay xilli tuuriyootan ahaan iska galnay ilaahay maqaadiirtiis il gabadha iga dhufatay ilna nin wiila iga dhuftay aan istuuriyaheennay alxamdulillaah indhahey marka labada indhoodba saasaa ku waayay dhacdooyin murugo leh iyo dhibaatooyin daran ayuu ku qaabilay arag la'aanta goor habeena god loo qoday in qashinka lagu gubo ayay ku guda dhaceen isaga iyo saaxiibkii waraawdi oo dhahay waa ku dhacnay labadiinniba si haddana waxaan ugu dhacnay dadaba oon ficneen godkii waana cariiriyey waana dhibay si aan uga baxno waa uqubina muddo saacad iyo saacad barkeeda annagoo ku jirnaa yaabanoon isleenna alleelehe ma ku dhima rabtiin maanta xabaal ma doontay inay noqoe ciddii qodkii qodataya waxay soo biyo iyo qashin waxay inta soo qaadeenay maageen ku shub godkii marka gabadhii yaa nuunuudeennii iyo maaragtay nuuxnuuxsigeennii iyo warkeennii inta maqashay naxday qaylide nin oo dariska ah wuxuu soo qaatay qoray qoragii waa nagu kaleeb dhacday waraannakiyaana la dilinaan leenahay qoray caadi xabad ka dhaceeda oo soo qaatay qoragii waa leeb dhacay ninkan wuxuu yidhi ilaahay maqaadiirtiis meeshaan dhex bilbilaa war waxaan dhaana jinni maahina insiyaan nahay dadkaasaan nahay war naga qalleeya war naga leexda waxa uu u baahan yahay inuu helo ushacad oo ah sumad caalami ah oo lagu aqoonsado dadka araggala balse hadda kama muuqato sumad meel fog laga bidhaansan karo oo muujinaysa inuu aragga naafo ka yahay taasi oo khatar gelisay dhowr jeer jidka anoo ku socdo isla fiican oo waddada ii saxan tahay luuq markaan ka soo leexda luuqii kaleetaan ku dhacay nin odaya isku dhacnay goor adiga fiid fiicanna waa toon isleeyahay alleele markaas dadka waa la kala gara karaa ninkii waa xanaaqsanay kulley tabeefeeru ugu bilaab waxaa idhi niyo howlaalow nin wax u jeeda maahiye haydilin aan dhah igama uusa joojine adiga markuu 4 xabba ii galshiyaan iga tag ilaahay kuu jeeday ninkii waxaa ilaahay ka tibay god ilaahay meesha ku yaala ilaahay ku dhacaafada waa iska aragtay darbiyada qof walba darbigeeda waxay ka qodataa god qashin ka qoday ninkii aniga ilaahay maqaadiirtiis intuu erjada kullee gadaal ii soo fiiray godkii ku dhacay nin caawi ana hadan ugu horeeyay ana ka soo saaray dii uu calaamad leedahay calaamadaas waxa waaye indhoolada lagu gartaa adiga hadda bilisgaarisa qofka markay soo socoto
iskarsta lagu garaacaho qofka markaad ku dhacdo qof keligii socota lama dhihi karo indhool aan ahay cid ka yeelayda male. inta badan wakhtigiisa masaajidka ayuu ku qaataa oo shaqo ma hayo, waxaase guriga ku sugaya carruur uu dhalay iyo qoyskiisa oo sabool ah, kuwaas oo uu fadhamadnaa kula laabanayo. maqalkeyga iyo muuqaalkeyga gara karta aan kaalmo ka rabaa, qof aanan kaalmo uga baahnayn ma jira. allihii islaamaan u baahanahay, qofkii ma ii kaalmeedana alxamdulilaah, waxa waaye qofkaan ii kaalmeedna alxamdulilah. aniga waxa waaye guri kiraaha ku jira, kiraa layga rabaa, meel ma fadhiisan karo. shaqo maanta la yaqaano oo ku toosanna uma soo kalaho, waa diintaas iyo beedkaas ilaahay kaliyahaan u dhalmada.